marka qofka la qoro kadibna kooxdu waxay la wareegtaa akoonadiisa, waxay qaadataa inta badan lacagaha uu shaqaystay, waxay isticmaashaa cabsigelin iyo cadaadis nafsi ah oo ay ku qasbaan inuu sameeyo waxyaabo anshax lidi ku ah. Dhibanayaasha waxaa lagu soo jiitaa ballanqaadyo dhaqaale iyo shaqo, balse marka ay ku biiraan waxaa lagu qasbaa inay soo saaraan muuqaallo iyo sawirro qaawan. Ciidamo ka socday 7 waddan oo Yurub ah ayaa iska kaashaday howlgal socday 4 maalmood si ay u baaraan shabakado la tuhunsan yahay in ay u adeegsadaan baraha internetka ee lacagta lagu xidho subscription platforms in ay ku fududeeyaan ka ganacsiga dadka iyo tacadiyada galmada. Howlgalkan oo loo bixiyey Cyber Protect 3 oo dhacay 19 ilaa 22 May 2026 waxaa si wada jir ah u soo qabanqaabiyey Interpol iyo Ururka Ammaanka iyo Iskaashiga Yurub ee loo soo gaabiyo OSCE. Intii uu socday howlgalkan waxaa la helay xogo muhiim ah oo horseeday in la aqoonsado dad la tuhunsan yahay dhibanayaal ay suuragal tahay in ay kiisaskooda ku jiraan baraha bulshada iyo kiisas cusub oo baaritaano u baahan. Sida ay sheegtay Interpol, kooxaha dembiyada abaabulan ayaa si isu soo taraysa u adeegsanaya baraha dadka ay lacagta kaga helaan daawashada muuqaalada gaarka ah si ay uga soo dabtaan haween, carruur iyo dad nugul. Dhibanayaasha waxaa lagu soo jiitaa ballanqaadyo dhaqaale iyo shaqo, balse marka ay ku biiraan waxaa lagu qasbaa inay soo saaraan muuqaallo iyo sawirro qaawan. Bishii Febraayo 2026, Interpol waxay soo saartay digniin caalami ah taas oo lagu sheegay in kooxahan inta badan ay iska dhigaan wakaalado sharci ah oo sameeya moodel ama shaqaaleysiiya dadka modelka sameeya. Marka qofka la qoro kadibna kooxdu waxay la wareegtaa akoonadiisa, waxay qaadataa inta badan lacagaha uu shaqaystay, waxay isticmaashaa cabsigelin iyo cadaadis nafsi ah oo ay ku qasbaan inuu sameeyo waxyaabo anshax lidi ku ah. Howlgalka Cyber Protect 3 waxaa ka qayb galay 14 sarkaal oo ka kala socday dalalka ka qaybgalaya howlgalka. Waxay baaritaano ku sameeyeen mareegaha internetka, baraha bulshada, baraha fariimaha la isugu diro iyo goobaha lacagta lagu xirto ee lagu daawado muuqaalada gaarka ah. Waxaa lagu guuleystay in la aqoonsado 34 kiis oo laga shakaysanaa, 18 qof oo ku lug lahaa iyo 27 qof oo loo aqoonsaday in ay yihiin dhibanayaal. Interpol waxay sheegtay in goobahan ay adag tahay in la baaro sababtoo ah waxyaabaha ku jira waxa lagu arki karaa oo kaliya kadib markaad lacag bixiso. Kooxaha dembiyadu waxay adeegsadaan erayo sir ah. Dembiyaduna waxay ka dhacaan dalal kala duwan taasoo adkeynaysa wada shaqaynta sharciyeed. Warbixintu waxay sheegaysaa in kooxda dembiyada ay internetka ku iibiyaan koorsooyin sheegaya inay dadka ku barayaan sida lacag looga sameeyo ka faa'iidaysiga haweenka iyagoo adeegsanaya baraha lacagta lagu bixiyo. Habkan cusub waxaa loogu yeeraa e-bombing, waana marka dambiilayaashu ay adeegsadaan qalabka dijitaalka ah si ay si ballaaran ugu maamulaan tacadiyada iyo ka faa'iidaysiga dadka. Baaritaanka ayaa sidoo kale waxaa lagu ogaaday xaysiisyo badan oo loo isticmaalay haween ka soo jeeda Koonfurta Ameerika, taasoo muujinaysa in gobolkaas uu yahay meelaha ugu muhiimsan ee laga qorto dhibanayaasha. Dadka wax qorta oo adeegsanaya baraha fariimaha sirta ah si ay xiriir ula yeeshaan dhibanayaasha waxay mararka qaarkood ay ka codsadaan sawirro qaawan iyagoo aan hubin da'dooda. Dadka sameeya waxyaabaha internetka lagu iibiyo oo lagu kala iibsaday lacag badan. Hal koox oo fariin wadaag sameynaysay ayaa waxaa laga helay in 28,000 oo xayeysiis oo arrintan la xiriira ay sameynayeen. Lacag bixinta oo lagu sameeyey cryptocurrency iyo calaamadda diamond-ka oo loo bedeli karo lacagta dijitaalka. Baarayaashu waxay heleen xaalado lagu kala iibiyey $3 oo kaliya si loo helo muuqaallo gaar ah oo soconaya 25 daqiiqo. Baraha bulshada ayay dambiilayaashu isku dhaafsadaan xeelado iyo waayo aragnimo u gaar ah. Waxay adeegsadaan adeegga sirdoonka macmalka ah ee AI si loo abuuro akoono iyo shakhsiyaad been abuura oo lagu jahwareerinayo howlgallada dembiyada looga hortagayo. Agaasimaha waaxda dembiyada abaabulan iyo kuwa soo kordhaya ee Interpol, David Quanta, ayaa yidhi isku keenista saraakiishan waxay naga caawisay inaannu helno xog muhiim ah oo muujinaysa sida baraha lacagta lagu bixiyo loogu adeegsado ka faa'iidaysiga dadka nugul. Qof kasta oo loo aqoonsado ha noqdo tuhmane ama dhibane waxa uu horseedaa baaritaano cusub. Waxaana xoojinaynaa awoodda aanu u leenahay burburinta shabakadaha dembiyada iyo badbaadinta dadka halista ku jira. Howlgalkan waxaa ka qayb galay Jarmalka, Netherland, Romania, Spain, Sweden, Ukraine iyo boqortooyada Ingiriiska. Sidoo kalena waxaa taageeray hay-ado iyo shirkado ay ka mid yihiin Interpol, Europol, NETA, TikTok, Cybercrime Atlas, Group IB iyo Stop the Traffic iyo hay-ado kale oo ka shaqeeya la dagaalanka dembiyada internetka iyo ka ganacsiga